you gonna do? Yeah. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? howlka dugsiga tababarka booliska ayaa la isugu keenay saraakiisha ciidamada qalabka sida oo ay hormuud u yihiin taliyayaasha ciidamada. Ujeedka ugu weyn ee kulanka ayaa ahaa sidii warbixin looga dhageysan lahaa guddi loo xil saaray isku dhacyada ciidamada qaar. Xeerlaaliyaha guud ee ciidamada oo matalaya garsoorka ciidamada qalabka sida ayaa taageeray tuduc ka mid ah soo jeedinta guddiga. waxaa jiri jiray bulletin military ka sokow sarkaal heegana waxaa la jiray operative hal waa hadii dambi dhaco. booliisku waxay dhigi jireen hal waa official bakeeti waa imaan jireen durbaba ayaga la wareegi jiray askariga xoogga dalka ama cid dib gasha waa laga maarmaan in la sameeyo heegankii saraakiishii gali jirtay iyo ciidankii booliiska dableyda ahaa oo diyaar ah. taliyaha ciidamada booliska ayaa u kala qaaday laba arin habka ciqaab marinta waxaana dul istaagay in uu hormuud u noqon doono sareynta sharciga. marka waxaan rabaa inaan cayimo waxna waa discipline rigada ka soo dhahda waa discipline in madaxdaadu socod salaam weys waa discipline timahaaga waa discipline shaqadii waad ka maqnaato waa discipline laftigeedu laakiin amar diidda markay noqoto nooc rabtaa noqoto waa maxkamad waa police baan ay markaa saarayso military baan ay markaa saarayso iyo dunuubta kaloo la xiriir arrintaas waxaynu badanaa aynu isku laynayno waa wax maxkamad ah horta markaynu qaadanno innagu sharcigan dhowrno anigu intaan ciidanka booliiska madaxda ka ahay ninka amar diida ee ninka sarreeya ka diida ama military ha noqdo ama booliis ha noqdo ninkaas maxkamaddu ku tagaya ma aynan discipline iyo ganaaxi midna maaha ninkaas maxkamaddu ku tagaya waxay ahaataba